حتى حيرتان أكو متستو لينتنا عاو سيدا درتين وحنكون فكري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن مركز دنا عليك جوجتان مركز تيجي كان سوي وهذا صاحب يا مركز كورسين سمعت هذا تاعنا كعصنا كان كان سبسكرايب كريسان مقال كنا هذا كريسان شير كريسان لو ذاك تنا سحبتنا أدبد ما هتدا دهرو جوجتين حتى عصبتنا سوي وهذا كله مركز تلاقي ما دو وحكى حلا يا مقال كتبت كتاب مكساركتين رانتي وحويان فنان صوماليات هذا اليوتيوبر كنت بعمل كرايو فنان صوماليات أو يعني وقت يوتيوبر هنتي لكن labada dhanba ku jira laakiin xagga fanka imka u badan waasiikii oo rahantii ugu dambeyn yaani socdaalka ku mariyay Soomaaliya ka tagay dalka maxaa ay sheegay Austria oo yaani deegaan ahaan u jooga hadda waqti xadirkan rahantii wuxuu ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan Somaliland iyo sidoo arkay iyo sababtiimin way damay wuxuu jooga horta meesha deegaan ahaan hadda joogay Austria jooga oo ku noqday waxa ogeyn socdaal dheer ku mariyay wadamada qaaradda Yurub Afrika oo qayb Soomaaliya kamid ah qayb Afrikada kala kamid ah Turki runtii meelo kala badan oo balan qaaday imanayaan ay jireen haddaba waxa jirtay in magaalada Muqdisho tagay kadibna gobolada Soomaaliya dhamaantood soo maray sida Baydhabo Boqol maxaa la sheegay Kismaayo adu gobol fara badan oo soo maray socdaal ku maray ugu dambeynna uu ku noqday oo halkaas socdaal ku galay Nairobi oo socdaal lugta ku galay Nairobi iyadoo ay taas jirto ayaa jirtay in wadamada Soomaaliya degta fara badan yihiin haddaba su'aashan isweydiiba waxay tahay Somaliland iyo Hargaysa runtii maxay kaga duwan tahay dhulka kale Soomaalida ee si ka tagin waxa jirtay erayada runtii aan ku yartaba karin aflagaada hayeen qurux badnayn si eragan oo kale waxa weeyaan runtii waxaan jiray haddaad tagto Somaliland adoo gobolada kale Soomaaliya maraya oo socdaal ku marto socdaal ku gasho luga ama aad eri dhulku doon ha haade waa lagu xiri doonaa kadibna liinta ayaad cabi doontaa horta Somaliland meel يعني لين وجوني ضد كل واحد بسمر كسوق كلام يتعلم معها من إلى قرحنا أريد عن كاسو كلا قف يعني يوتيوبر أم فنان أو ده بالشبه أنا كل حرنت هاي إن أريد عصو كلا بالشدة اللهري متى وإلى يرى قرح بدنا ويدي وحن كأموس كرين وإلى نقوم ويدي إن رنهانتي وحكلو شرتا إن أي Somaliland أنا كدويني وضمات كلا بدن إنه سيكت تكني Somaliland دكتور سيدا جيجا جيبوتي Somaliland يما كلا Somaliland دكتور بلدان يو قروي يو كسماعي يالون كسماعي بوساسة يو قالكعية أنت هرمو إيمان جوا ورد Somaliland دكتور هذا بقى فرت كوجودن أما صوت وسيك رنانتي مرة بوجد أحساري Somaliland روك كلا Somaliland دكتور ما هي تاي والسؤال سويدي من أنت صنع قياسي كرا هرت وحى وكذا وجدت يعني كأجلو سحب دريس Somaliland إن لا صحيح إنه أركن سميرك أركن إلا مقرح بدنا ما دام تاي قف يعني بش تعوطه تبدو إنك حريين فنان يوتيوبر وحى شرفك وحان لحيد wanaagsanaan lahayd inaad socdaalka ama lugtaad ka soo bilowdo magaalada Muqdisho inaad ku marto Garowe inaad Hargeysa ku marto inaad Xidhya ku marto inaad Djibouti ku marto inaad Dira dhaba tagto anyway waa dhul Soomaaliya degtay dhamaanto adiga wax siyaasad leh wad ka madax banaantay kumana ogsoonin kumana aqoonsanin inaad tahay siyaasi runaantii maanta wasiir kamid wasiirada Soomaaliya ama qof kamid dawladda Soomaaliya hadii uu sameyn lahaa oo intuu Soomaaliya يعني لو كسب بلاو وقبلنا يعني Soomaalida kala dhinta kala waxay ahayd siyaasadda oo qof mas'uul oo dawladda wax ka ahwiyay laakiin qofka youtuberka fanaanka wariyaha runtii inta wax weeyaan dadka isku soo jiida ay soo keenay bulshada waxaana noqon lahayd in dhalinyaro badan oo raad noqoto oo youtuber Hargeysa jooga oo lugta ka bilaabay Hargeysa ku tagi karo ilaa iyo NFD halka ka geli karo dhulka Soomaalida dhamaantood mari karayo laakiin eraygan jeclaysan lahaa CK inuu ka bixiyo yani runtii يعني apologies أما يعني هرجعين كبحي وحويان أرجع لين تين عبتان كبقنين لين تعب يعني كبقنين هرجيس معها قب تتكلين أما يعني سيجوني الفنان ما دام يوتيوبر ما دام تحقق بالشدة ما قاعد كل حلا رنهانتي واحد شرب واحد كستبو أما تتكستو مال كل رقبة أرن يعني اللي قد عاديو أو مركها تها أدوجو قف بابل فين كرا كل قرح بدنا بناك كينين إن رنهانتي واحد فنان هذا وقول إنسان هذي كان أقولك Somaliland si gooniya ama si speed dad kastana ama bulsho kasta meel ku dhaqan waxa jirta hal arin ma hal program ama hal daacad oo lagu xanto hadaa tahay qof public figure ama bulshada ka duwan oo ma youtuber ha ahaado ama fanaan ha ahaado ama ku doonaha ahaade runtii waxa qurux badan in uu nabo wax kasta bulshada dhibaato ku ah Hargeysa ma aha runtii seen hore u sheegnay goob dadka markii meetaan iska xidho qofka soo sharciga ama qofka soo sharciga soconaya ama qof kasta sifo sharci ku yimaadana si nabad iyo rayn iyo qurux badan ku jooga
waxaan wanaagsan markastaba inaad ilaaliso adiguna etigiska iyo yani waxyaabo u goonida meeshaas ama waxyaabo u hadee yani code of conduct oo ama waxyaabaha u hadee u goonida si kasta idin ku fahmi kartaan iyadoo ay taasi jirto ma qurux badna waxaan dareemayaa in dad badan yani Somaliland ama Hargeysa nacsiinayso adiga ku dhahdo iyadoo markii hore wax jirin waxyaabo la hadalay haddana inaad nacsiinayso laakiin qofka sameyn karaya inuu bulshada soo keeno bulshada soo dhoweeyaa waa qofka caanka ah ama qofka dad badan ku xidhan runtii waxaan dareemi lahayn waxa qurux badna lahayd maanta oo kale hadii lugtaas oo kale Hargeysa ku soo mari lahayd even oo kale inay dad badan dareemi lahaayeen inaan Somaliland wax dhibaato ka jirin laakiin adiga intaad tagtood noqoto markaad history ka soo gasho live ama YouTube video soo duubto tiraado waxaan ka baqanay inaan leen la siiyo runtii waxa la oran karaa macaasiikeegi fanaanka xitaa haba ka baqday Hargeysa la oranay ma quruxna taasoo runtii haddaba reer Somaliland maxay ka aaminsan marka laga yimaado dadka social media ku jira maxay ka aaminsan yihiin ma wanaagsan dabadhalflaynto ma wanaagsan runtii dadka hoostiisa ka fataala laakiin reer Somaliland runtii waxay ka aaminsan yihiin maxay tahay وكلا دوين dadku isku wada mid maaha dad waxa jira caasimada Hargeysa matalo social media ku jira oo caan ka magaalada Hargeysa dad waxa jira si gooni adag ku taageera oo dadka aan dadka ka dhaxmoqan baa jira iyadoo ay taasi jirto wax kasta Somaliland ka amsantay wax ka soo tahay wax uman qof ka soo social media ku jira in og yahay ogsoon yahay taas oo ka dhadhacsan tahay hadda tahay si kaahan ما إسكان ترى منا كعمسنا منا يعني كجابسنا مركز تبع هالكلام كوسكنا مجوبتن جوجنو إنسو جوني الله صعد تاجم سي جوني وحنا كشهوا ما قرح بنا فنهانتي ما تشيجن مرة مرستحد منكم إن ما تشيجن تشيجة ما تشيجن جيبوتي ما تشيجن يعني بودلان محاسة بين هاو واعي حسابته تركيزه كله وجه هذا صار تركيزين لين لا يقع بسين كبقنا محيط هاي أنت أسوق لما قولوا سمعني دكتور anyway وحكي سوي هقفك بلانك معنا بمقطر نهانتي waxaan ka dareemayaa si kee markastaba oo program reer Somaliland ama program Hargeysa ka hadlayo si gooniya ama si yani ay fariiq ku gudanteen uga hadlo mana qurux badna dadkan laga dhax saaro ama dadkan ka dhax duwanaan ma qurux badna ruuxantiina magaalada Hargeysa dadkaasi wax qaldan laga aaminsan ma qurux badna because of wax dareemayaan marka la dhaahdo ama aad tiraahdo Soomaaliya waan ka noqday oo studentiga dib baan soo dhoofiyay Hargeysa nimanaya ما قرح أنا ولا سومالي دكتور ما تجينين أنت مدغشقر كتمي ما تجينين قدر ما تجينتي يعني الصومالي ولا دكتور ضفك الصومالي كود حد شوغان ويا اسلام وحبا دمانتو marka laga yimaado maamulada kala jira ama dawladaha kala jira hadaba ku bishaarayso oo ku yani ku aflax oo ogsanow reer Somaliland si gooni ba adiga ku arkeen marka arka keento marka sabin kugu jirta niyadaada because of mad matalo hal qof oo YouTuber ama hal qof oo shakhsi oo inta u yeedhaad guri soo fadhiisto ariga ka waran matalo Somaliland waxa ka qurux badnaan lahayd inaad video soo duubtay inta joogtay Soomaaliya ama Muqdisho hata ma kismaayaa hata reer Somaliland programka saa jira midna wanaagsan mise midna qurux mid taageerayaasha because of waxa socota waxa weey yani rayga taageerayaasha ku socota mid adiga ku gooni kuma socotid maadaama dad qancinaysid doonta hayda qof inta bulshada wax ku dhaxla maanta marka istira tagtad muqaal soo duubtay saasan saawsimu qof biyo qofkaasan saari kama asmacayaan bulshada Soomaaliland oo kama yeelayso runtii dhul Soomaaliyeed marka dhul Soomaaliyeed hadda ku si qaldan turjumaan yani meel kasta maamul iyo dawlad bay leedahay marka afkan Soomaaliyeed ku hadlano kala yimaado runtii lahjadu hay'ada kala duwan laakiin Soomaaliyeed wadanahay waan ku tilmaami karaa siyaasad haduu maanta programkan oran lahaa ama san sameyn lahaa wada siyaasigaas dad iyo maamul gooniya ay madax u yahay laakiin si kee kuma nagin madaxweyne kuma nagin wasiir kuma nagin xildhibaan kuma nagin يعني حكين كمان يعني قف كوني ومدحه وحكينا anyway وحنا جالسين لها برنامج كان إنه سيك سيكونيا ما سيك بحسن سيدان إن أردقه بيلا قرح بدنا لهين سقلنا هي فهمنا رنانتي عاد بعد ما هزت السحب يعني مكسودون على كتان وتكون هزت كمان عشان نكسب بريتان كنا مقالك حين تكون بدنا واحد كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.